odaygii sheekh baan ka maqlayay habeen telefisyoonka lahaa shame on you Soomaaliyay shame on you Soomaali dadkiina makhaayadaha fadhiya odayaasha makhaayadaha fadhiya oo siyaasadda Soomaaliya ka shaqeynaya oo caruurtoodu gaangiska noqdeen shame on you shame on you shame on you shame on you ani tuulada ugu yar ayaan deganaan jiray buu halkaas yaa post bay lahayd post oo waraaqadaha la nooga soo diro Yurub iyo dhulka Carabta tuulada yar buu nagu soo gaari jiray imikana awde kolku nidaamku jiro kolka sida weey nidaam la'aantuna waxa ay dadka imika aad ka timaadeen ay ku nool yihiin nin waliba inuu aqalkiisa u hooyanayo iyo in kale ilaahay baa dariiq baa lagu sugaya maxaayad baa lagu sugaya gaari baa la garab galaya wax lagu dilayna la garan maayo waa masiibo cadiima iyo midiya jirta meesha Soomaaliya dalalkan Carabta ay hadda dhibaatooyin ka dhacay wax badan baad iyaga ka ogtiin laakiin inaga ceebaheena inaan aad isu ogeyn inaynu is xusuusinana u baahan 1975 anigu waxaan ahaa arday yar oo dhalinyarada ardayda ka mid ah Soomaaliya jooga ku jira ololaha farbaridda Soomaaliya reer miyiga magaalada Jowhar baa joogay markaas waxaa dhacday kacaankii wadanka ka jiray ee cirka markaa maraya oo aan cidi ka hortagi karin in uu soo saaray qaanuun lagu tilmaamay xeerka qoyska arrintiisuna ama gundhigiisuna ay ahayd wax la yiraahdo rag iyo dumar baa dhaxalka kala leh ama kala duwan ma jiraan waxa la yiri oo dawladda ay soo saartay in rag iyo dumarku u siman yihiin dhaqaalaha dhaxalka ma jiro baa la yiri thuluth iyo rubuc iyo sudus iyadoo lagu istihzoonayo aayadihii quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala quraan kariimka uu ku sheegay yusiikum Allahu fi awladikum للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس فلأمه ثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين بوحى ليري مجره لا ثلث ولا سدس ولا ربع ولا جني مجرته علماء كعضي أو وحي تري أرنكاس ومنكر cid hadli kartaa ummadda Soomaaliyeed waagaas kuma jirin cid badan oo hadli karta oo afka kala furi karta oo oran karta waxaas waa dulmi ma joogin dadka intooda badan ama way isdhiibeen ama xiniyaha laga siibay dad culimaah baa istaagay oo diinta Ilaahay u qiirooday waxay yiraahdeen arrinkaasu sax ma aha waa dulmi haddaan projectorka hayo hadda sawiradoodii waan soo saari lahaa laakiin filimkan ay saarneen 10 nin oo ragga ka mid ah ayaa iyagoo Ilaahay u ashtakoonaya tiirka la geeyay waa la dilay yooman waaxidan subax baa la dilay waan xusuustaa cirku waa ooyay dhulku ma ooyin Soomaalidu ma ooyin shacabka Soomaaliyeed waagaas ma ooyin ma gilgilan talaaba inta leeg dulmiga kama sameeyo bal waxa ka daran in badan oo kamidi way daawanayeen daawasha loo tagay iskoola bulisiya meel la yiraahdo dhalinyarada yaryar ma yaqaanaane Muqdisho aqoone tiirka meel la yiraahdo dadka la geyn jiray halkaas lagu dilay 10 culimada ah subax Soomaaliyu ma gilgilan iyaguna way Ilaahay bay u ashtakoonayeen dulmiga lagu asiibay fi huduu iyadoo la aamusan yahay bay tageen
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إلهي وحيري هأملين إنه إلهي غافل كيهي وحد ظلمي قال الصمين أيوه إلهي غافل كما هين ياوي يعني من قصة سؤال يكسن يعني من السؤال يكسن يعني هو قصة قالا سقرن كي الصوماليين لو بربريو ياوي إذن الصوماليين هو دنبيلي يالبانا markaasaan waxaan ku darsanay inta shir laynoo qabto in layna yiraahdo see xubnaha u kala qaybsanaa maanta waxaan akhrinayay joornaalka qosol oo oy gobol nin jooga oo madaxa wuxuu leeyahay dawlad Soomaaliyeed ma dhacayso mana sugnaanayso reerka iyagu haddaanay intaa helin. What the hell you are talking about? maxay tahay reerka iyagu haddaanay tahay dambiilaba tahay xukun waxaad ku xukuman tahay in lagu xukumo maxkamad baad saaran tahay qaran Soomaaliyeed baad burburisay ummad baad baabi'isay jiil baad baraha ku daadisay qaxooti baad malaayiin ka dhigtay gaalaad malaayiin ka dhigtay yaa ka dhigay you not other one. It's not America, it's not Europe, it's not Japan, it's not Kenya, nor it's Ethiopia. It's only Somalis who killed themselves. وأيجا وأيدي شيء رنت معها والله بالله أنا حين عيار أنت الصومالي إسكد شيء يا أنت إثيوبيا كد شيء يا بلن صومالي أنت يدش بلن صومالي أنت اللي صابلن صومالي أنت بلايك وسوق جاب صابلن and today دل كأني محول بابا سيء و only our reason أنك سببتين واي قال أنا كملا $500 يدلكوا ذكوا يبسدان قال أنا كملا مقعبا لقوا يلا يكوا يبسدان دلكوا ذا قبائل باكو تاجرة كاس كليجيس نما يبسدين هدي عن قبائل كو تاجرين ميونا يبسدن لها كليجيس نقدر لها سوق من نقص قدر لها ضل قطي بعنا هاي لا يبسدي سوق ولا بقول رخيصا أدونك لقوا يبسدي and still we are talking about قل بنقلينا مركز أولا غير هبل سكان كنا saxaamarka in la burburiyo maaha in la saxo bay ahayd ma in la burburiyo oo aan konton sano dib u noqdo oo aan boostada qandara ay igu iimaanaysay maanta ay noqoto caasimadii dhamayd la idin sheegayo it's nothing wax ka jira ma jiraan muqdisho waabad maqli jirteen ma tagteen annaga tagnay weydiiyo waagay jirtay ma jirto magaalo la yiraahdo muqdisho ma jirto waa magac حافظات مغشان وسيطة باستضة بونديري خضن مش عارف ايش دق في ركتيضة وحجران مجران ودنبس وي يا دنبس كدي كو هاد شوغة وكو دقا علمايا قار مسلمين ما يوداد الشغنة الدين إلهي درت ديني وحان إلهي وقع عذر دارنيا إن مقع الدين تيسل قصة ما يوحى صوكله إلهي وقع عذر دارنينا waxaan ilaahay uga cudur daaranaynaa Soomaalinimo iyo sharafteed in lagu sameeyo waxa dawladnimo lagu sheegay ee baabaas ee gadashada ummadda ee wiilka yar ee United Nations Organization-adeeda jooga Nairobi ay gacanta ugu yeeraan oo u yeeriyaan oo u dictate garayaan waxay doonayaan waxaas oo kale in Soomaalinimo lagu sheegana ilaahay baan uga cudur daaranaynaa waxaanu aragnay dawladnimo iyo macaanka ay leedahay saas darteed baan waxaan meesha ordaya iyo waxaan socda magacay doonaan ha sheegtaan diin ha sheegtaan islaam ha sheegtaan wax kale ha sheegtaan ayaanan ka aqbalahayn dawlad la'aan iyo qaran la'aan iyo ummadnimo la'aan wada jirta baan wax ku keenaynaa kana ka aqbalmin we're not going to accept that dawlad xataa daciifa baa nooga roon oo qaran ah oo ummadnimo ah anu naftaydan tusaale ka soo qaadaya nacam xumaanta aan ka sheegay dawladnimadaas baa haddana waxaan dareemayaa fakhriga ay lahayd wanaaga ay lahayd dawladnimo iyo qarannimo dalkayga markaan joogay 1972 tusaalayaal haddaan u soo qaato naftayda that is example way dad badan ila midna waa jira tuuladeedii aan ku dhashay qandara la yiraahdo gobolka bari ee Soomaaliya ka mid tahay waxay ka fogtahay caasimadda Soomaaliya 2,000 kilometer bay ka fogtahay oo u jirtaa in that tuuladaas magaaladaas degmadaas yarta ah
population keedu 10,000 aanu markaas ka badnayn 1967 68 69 70 ayaan elementaryga ku dhigtay waxaa ku yaala cusbitaalkii yaraa waxaa ku yaala police stationkii waxaa ku yaala iskuulkii waxaa igu yaalay biyihii oo aan ku cabayay waxaa igu imanaysay warqadda walaalkay uu ka soo diro Europe salkeeda uu ka soo diro I was getting in the post office in Qandala baan ku helay today 40 sano baa 50 sano laga joogaa maanta Hargeysa cidna ma ku diri kartaa warqad you can send it in the post office ma ku diri kartaa boosaas ma ku diri kartaa qofna warqad waa simple thing service oo dawladnimo leedahay waa very simple service guriyaha waxa idinku soo wada dhaca waraaqa idinku soo wada dhaca check baa ii soo dhacay bill baa ii soo dhacay kana ii yimi you are not going ma qiimeynaysan arrimahaas waxa ay leedahay because dawladnimo iyo qaran baa jira meesha nidaam baa jira system baa jira keenina waan burburinaynaa we don't need it ma rabno inaan sameeyno ma rabno inuu jiro waxaan ilaalinaynaa traffic light baan ilaalinaynaa wadamada kale waxaan ilaalinaynaa traffic light-ka stop waa istaagaynaa innaga soo maaha dhiiggaan ku tubanaynaa qaliilkan ku tubanaynaa dulmigaan ku tubanaynaa baabaabiyana dalkeenna waa duugaynaa isagoo nool baan duugaynaa ma ogolin inaan is ogolaano ma ogolin aan ku wada noolaano magaalada aan ku wada noolaano ma ogolin saa wax u baran lahaydeen saa isugu duubnaan lahaydeen saa idinku u dhaqmi lahaydeen idinkoo muslina taas ka shaqeeya 11 kilomitir 11,000 kilomitir dalka idin jira ee taararka la idinku soo sheegayo beenta aan waxba ka jirin walaalayaal priority-giina labaad ama saddexaad ama afraad ama shanaad ka dhiga anu taasaan idinku la talinay dadkiina makhaayadaha fadhiya odayaasha makhaayadaha fadhiya oo siyaasadda Soomaaliya ka shaqeynaya oo caruurtoodu gaangiska noqdeen shame on you shame on you shame on you shame on you caruurtoodu gaangiska noqotay oo aan ogeyn iskuulkay dhigtaan aan garanayn oo af Soomaali inay xataa ku hadlaan aan garanayn oo Starbucks-ka intuu fadhiyo wasiir hebel ma la horyaday oranaya iyo xisbi hebel halkaas uu ka dhaxay oranaya shame on you ka shaqay ilmahaaga waajibkooda ka shaqay ilmahaaga horta iyaga ka dhig dad muslina oo wadankan degan oo wax ku barta oo nafle oo Soomaaliya ka dhig wallahi billah waxaan garanayaa niman ka shaqeynaya oo leh Soomaaliya wax ka dhigaya Soomaaliya wax ka shaqeynaya Soomaaliya wax ka yeelaya leh oo London fadhiya oo Minneapolis fadhiya oo Melbourne fadhiya oo Nairobi fadhiya oo Johannesburg fadhiya kullu waa Soomaali oo fadhiya oo aan waxba ka qaban karin Soomaaliya caruurtiisi xaaskiisi reerkiisi diintiisi mas'uuliyadiisina dayacay bulshada Soomaaliyeed ilaa joogta maxaad u qabataan I'm asking you maxaad u qabataan ma isku duubantiin wax ma isweydiisaan dalkan 100,000 baad magaaladan ku joogtaan maxaa xuquuq aad qaadataan American system wuxuu idin ogol yahay xuquuq badan maxaad ka qaadataan waxaad u kala qaybsan tihiin faction hebel iyo faction hebel iyo faction hebel iyo faction hebel what the hell you are doing so meesha ka soo cararteen ma soo idinku cagcad ma soo gelin soo idinku cayra ma soo gelin ma dad noqotaan oo dalkiina markaa hagaajisaan ma dad noqotaan walaalayaal marka dhageysta billahi alaykum sheeka baraleedna in loo rayman billahi alaykum umadana yaan la dhumin billahi alaykum ilaahay baa idinku dhaariyay ilaahay ha laga boqo Soomaaliya ilaahay ha laga boqo ilaahay ha laga boqo haddaynan isbedelin wallahi alladhi la ilaha ghayru inaan wax isbedelihi xaaladanu inaan isbedelin anu warkayga intaas aan idinku soo gabagabeynaya idinkana Soomaaliya idinka wax ka dhigi kara hadda doonaysaan inaad dawlado badan baa adduunka dibadda laga dhis anigu waxaan hal shay baan idin akidayaa dadka halka wax ka sugaysaan wax idin ma soo wadaan wallahi inaan wax idin soo wadi wallahi inaan idin ka fikirayn wallahi balaad ku dhimateen kuwa kale wadaday soo hayaan saxaraha Libiya ku dhinteen balaha Talyaaniga ku dhinteen qaxootiga Kenya ku jiraan malaayiin yaa ka fikiraya ii sheega kuwa gudaha ku jira ma ka fikiraya kuwa xamar ku dagaalamaya ma ka fikiraya Soomaaliya shame on you shame on you shame on you shame on you shame on you